maalin uu jiray khilaaf xoogan ee u dhaxeeya xildhibaanada golaha shacabka kaas oo sababay markii ay ku kala arti duwanaadeen mooshin laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari khilaafka muddo badan jiray ayaa maanta waxa soo baxay warar sheegaya in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari uu iska casilay xilka gudoomiyaha baarlamaanka inkastoo weli saxaafadda uusan ka soo hor muuqan ama uusan la hadlin kadib markii uu soo baxay warka sheegaya in gudoomiyaha Jawaari uu is casilay TV Home Cable waxa ka weydiiyay bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho aragtidooda ku aadan iscasilaad la sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari uu iska casilay xilkii uu hayay shakhsiyan waxaan aaminsanahay inuu wada sax u sameeyo Dr. Jawaari waayo haddii maalin walba la iska qabsado waxa si halaaway sumcadda dawladda iyo rabitaanka shacabka laakiin tan wada sameeyo waxaan leeyahay waddankiisnimo noon horkacaysa dimuqraadiyadda adduunkana ogaanaa inaan nahay dad aanan xil jeclayn laakiin si walba isku qabsadaan aqar ay sameyn karaan isfaham iyo isku soo dhawaansho wallahi horta siyaasadda waa shay iska daba wareegayo oo ma qiyaas karno laakiin anaga waxa aad ugu muhiimadeen ugu weyn ay tahay in iska qabsiga oo dhamaado oo Jawaari is casilay ma dhayn kana xun kana fiican laakiin garashada Jawaari waxa uu ogtahay inuu noqdo oday Soomaaliyeed oo u tanaasulo dalkiisa iyo dadkiisa waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa is casilay mudane Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari waxay taas cadeynaysaa maalmo qalaasa siyaasadeed lagu jiray kadib in dalka hadda uu ka baxay siyaasadii qalaasii siyaasadeed waxay kaloo cadeynaysaa in dalkan uusan marnaba dib u laaban doonin uu hore u soconayo waxaan leeyahay dhammaan xildhibaanada kala qaybsamay waxaan ugu baaqayaa inay dib iskugu soo laabtaan ay midoobaan ay doortaan gudoomiye fiican oo dalkan samata bixin kara baarlamaankana mideyn kara waxaan anigu u arkayay inuu ahaa odaygu nin waalida oo nin weyna oo ku fiican shaqadiisa cidda ay iskhilaafeen oo shaqadii la wadi weysay oo noo hadhay waa ka walaacsanahay iyo cidda ay ku bedelaysaba ilaahay baan ka baryayaa wax khayr qaba laakiin kuma niyad sami madaxda aqalka filla Soomaaliya dhex fadhiso aamusan dadka inay u maqan yihiin kuma kalsooniye inay ku maqan yihiin dadka Soomaaliyeed banaamisanad Axmed Suleymaan Cable TV magaalada Muqdisho